aad baa ugu faraxsanahay runtii joogana aad buu noogu degan yahay waxaan laga sheekayn karin weeye waxaan leeyahay dadka kaan ogeyn baan haddal xiisoo leeyahay dadka kaan ogeyn baan haddal xiisoo leeyahay sida Cabdalla oo u jeeday waxaa la dabaalanaya Mr. Lucas oo ah traveler weyn oo ka socda dalka Poland. Hello Lucas. Very nice. I'm Somalia. Joogo macaan waxaan joognaa inta waxaan joognaa Ayl Beach. Waa dabaalanayna maanta to joogo macaan معناها مقدشة كانتي you travel to visit Mogadishu here. Yeah. What are you saying? You visit Mogadishu all over the and for years. So firstly, everyone thinks of Somalia as a very dangerous country, and people and travelers usually like me, they don't usually plan to go to Somalia, and everyone is afraid to go to Somalia. In India, when I told my friends that I'm going to Somalia, they were like, you will never come back. But when I came here, I realized that it's not like how we think. People are amazing, and normal people, like they are the same everywhere. There are good people everywhere. I'm translating for Somali. All right. wuxuu dhahay magaalada waa shidan tahay dadku waxay dhahayaan markaan soo baxayo macna xamar hada imaatid mas'uuliyad adoo dhimatay ognaay goda galay xamar Soomaalina waa imaaday waaba ii kal ku cusub macna waa shitay oo dhahay ma fahanti marka waxaan leeyahay Soomaali waa dad aad iyo aad u wanaagsan waa dad dadnimo leh waa dad soo jiidasho leh waa dad aad iyo aad u wanaagsan oo dhahay marka aad iyo aad u maasan yahay walaalkeena hindiga ah waa hindi وانا هندي وشدنا مقيس وحالي هذا وجهنا بارنفير واحد مامي رالا داود يا الحين ما تعرف كل حبيس ولا وين حبيس كي كان سفاري مقدشو وإلا all the way to مقدشو سفر كروها from مقدشو to Garowe to بوساسو إلى إيل هولي مكان شغله كالوريجي لبادي حد لبادي حد. السلام عليكم سومالي السفاري سوري هذا فضل جزيرة جبناها الحمد لله. السلام عليكم. عبيتاني معاهم بعوزة ورواسي. يلا بنحس ما شاء الله. أفضل إنسان الباقيني إندريا جيني نجيب باقيني بروة تجسدني ما كنا نعرفنا سفر حدا إذا بقولي أبغى نوصل لهذا الشيء الإسكول أنا ما أسمع. سؤال ويدي الحسيان شكله أساس على بنتنا آدم ما في مدان عالم كله ما في مدان وهو يعني دولة دلكا سؤال ويدنا إن شاء الله وعندنا هاي كل الحس دلكينا سواء أمنية سواء بليحة سواء وهو يعني دجاجني خاصة غربة الصومالي خاصة غربة الصومالي ده حلا هاي حلا كني ودلكني وهذا وحهليسان عمله وناكسن وحهليسان دول كنتي أفنجر كل غلطانا عارف دونتان برهي يدوحويكي يشوقي يحولي يدوحوتي وسلاح داغية إن عروتك صحية ألقان كيانا داغن كبرة وهو يعني وسيلة ما شاء الله هذا الفقري وراس عصير أكيسة قدين وصارت هل كان تحيث محمود هاي فيها طبعا هل كان تحيث كلا هاي dadka kaan ogeyn baan hadda xiisalaya laga soo bilaabo Boosaaso Dargaal meeshaan oo la fogayo hadda aan marayno waxaana tagi doonaa Cape Gardafuul Caloola iyo Bareeda iyo Xafuun insha Allah inaan la socdo soo safra nala socdo meeshaan waxa la dhahaa la fogayo marka waxa arkaysaa badda joogto maanta dhanka badda maanta ba arkaysaa qorayada meesha fadhida halkan waa magaaladii Laascaanood ma sha Allah soo dhawaada waxaan leenahay ummadda wax alaaliyo wixii ama sool ku socda ama degmada Laascaanood ku socda waa magaalo ama meel la iman karo meel wacan ku soo dhawaada cid waliba waa u hooyo aabe
وفري. قدومي لو isaga bana wado naga wakiil. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلوة مقالة الأسعار دمانتين. أبدا نسوا دوينا دمانتين. كلنا وحوي بيل طيو. ما شاء الله والله صار أنا عيدك هيك. ما شاء الله ودنا. Hi guys, my name is Abdi Shakur. I'm very glad to come here today, and I will say to you thank you very much. We enjoyed it very much. Thank you for your for the opportunity to come here. Yeah, thanks a lot. So always welcome, guys, and we wait more. All right, thanks. I appreciate my second trip to Somalia and Somaliland. Thanks to our guide and boss of all things, Ali. That was a great trip. We saw the unique places on African Horn, Cape Guardafui and Cape Hahoun. Wonderful Indian Ocean, many villages, towns, wonderful people. So after 1 year, that was the second time in Somalia, and maybe we'll come again. Yeah, exactly. It's my first time to Somalia, and it was a very nice trip. I don't remember the name of the places I've been to, but it was a very nice experience. I only regret that I haven't visited Mogadishu yet, so I'm planning to come back. Very nice. Thank you very much for the trip. The best ocean here. The water temperature is perfect, very similar, and please enjoy. Thank you. Say something about the cake. Thank you for welcoming me with such a great gift. I really appreciate your warm welcome and let's enjoy. Thank you very much. Thank you.